خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. maanta madaarka Boorama waxaa laga soo dejiyay meydka marxuun Maxamed Xasan Mataan oo ku geeriyooday dalka Ingiriiska. marxuunka waxaa loo keenay in lagu aaso magaalada Boorama. haddaba aaska marxuunka waxaa ka soo qayb galay dhammaan dadka ku nool Somaliland oo iskaga yimid magaalooyin kala duwan. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudan Daahir Riyaale Kaahin iyo siyaasiyiinta xisbiyada, ganacsatada, culimada iyo dhammaan bulshadu inta ay ka kooban tahay. haddaba marxuunka Allah u naxariiso, ehelku ka baxayna samriye baan Allah ka siiyay iyaga iyo inagaba. haddaba isagu waxa goobjoog ahaa oo aas ka qayb galiyay wariyaheena magaalada Boorama Cabdirasaaq Sheekh Maxile oo isagu halkaa nooga soo diray warbixintan. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. goobtaas oo ay ku sugnaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin iyadoo ay wehelinayaan golihiisa dhexe ee wasiirada, golaha baarlamaanka, golaha wakiilada, golaha guurtida, iyadoo halka diyaaradda ay ka soo degtay cabaar labadii iyo ruuc galabnimo. halkaas oo lagu tala galay ciidan gooniya oo soo qaada meydka kadib oo soo gulbiyay halkii lagu tukanayay janaasada, iyadoo laga soo qaadayo goobtii diyaaradda oo ciidankii heeganka u ahaa u soo qaadayaan goobtaas oo isku yimaadeen dad aad iyo aad u fara badan. kadib meydkii waxaa loo soo qaadayaa xaggii lagu tukanayay janaasada, iyadoo loo soo qaadayo waxa halkaa ku sugnaa, waxa goobta ku sugnaa dadka ehladooda, hooyadii iyo walaalihii, iyadoo halkaas uu hogaaminayo barasaabka gobolka Awdal iyo xubno kale oo aad iyo aad u fara badan. iyadoo goobta meydkii la hordhigay ehladii iyo qaraabadii oo iga horeyso hooyadii marxuumka. marxuumka oo isla goobta ugu duceysay Xaliimo Cilmi Aare kadib meydkii oo loo qaaday xagga iyo meeshii lagu tukanayay janaasada. isla goobtii oo loo sii galbiyay meydkii janaasadiisii xaggii lagu tukanayay waxa ku diyaar ahaa Sheekhul Beledki Sheekh Cabdillaahi Sheekh Ali Jawhar, iyadoo halkii goobtii la dhigay kadib salaadii aad iyo aad dadweyne aad iyo aad u fara badan oo ka soo qayb galay oo lagu tukaday goobtii isla airportkii, iyadoo lana meel kale oo qaada dadweynahan aan loo heleen. halkaas uu hogaaminayo barasaabka gobolka wasiirka warfaafinta Axmed Xaaji Daahir Cilmi, iyadoo halkaas loo sii hogaamiyay oo la dhigay bartii janaasada lagu tukanayay. kadib waxa halkaa ku tukaday Sheekh Cabdillaahi Sheekh Ali Jawhar. waxa la guda galay sidii salaad janaasada lagu tukan lahaa marxuumka, iyadoo halkaas dadweyne aad iyo aad u fara badan ay uga tacsiyeynayeen ehladii iyo qaraabadii geeridii ku timid. Allah u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Mataan. Allah u naxariistay Maxamed Xasan Mataan. madaxweynuhuna uga tacsiyeeyay walaalkii oo la socday meydka. taasi waxay ahayd warbixin kooban oo noo soo diyaariyay wariyaheena Cabdirasaaq Sheekh Maxile
oo isagoo goobjoog ahaa halka lagu duugayay marxuunka. haddaba marxuunka allaha u naxariistee 23kii bishii 3aad 2010 3dii galabnimo wuxuu ku geeriyooday cariga Ingiriiska, waxaana meydkiisa la keenay magaalada Boorama 29kii bisha 3aad 2010. allaha u naxariistee marxuunka oo taariikhdiisu ahayd taariikh aad u dheer, halkana aan lagu soo koobi karin, waxaan ugu talagalnay inaan barnaamij kale ku soo qaadano taariikhda marxuunka iyo waxqabadkiisii oo ilaa hadda muuqda. waa waxaan la inkiri karin inuu ahaa shakhsi sumcad iyo sharaf ku leh dadka dhexdooda. allaha u naxariistee marxuunka oo markii u dambeysay ama warbixintii u dambeysay uu bixiyay ay ahayd tacsidii uu soo diray marxuunkii kale, allaha isna naxariistii janno ka waraabiye ee ku dhintay dalka Sacuudiga kiyo u joogay inuu guto xajka. marxuun qaasim sheekh yuusuf ibraahim oo isagu ahaa wasiirkii macdanta iyo biyaha ee Somaliland, oo hadda aan ku tala jirno inaan u samayno film documentary hadduu ilaahay tiisa ay ahaato. haddaba allaha u naxariistee marxuun maxamed xasan mataan oo isagu tacsi u dirayay ehelka iyo qaraabadii uu ka baxay wasiirku ayaa waxaa hadaladiis ka mid ahaa sida tan: bismillaahi raxmaani raxiim, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. ilaahay naxariistiisa naa ka waraabiyo walaalkeen qaasim sheekh yuusuf sheekh ibraahim. qaasim wuxuu ahaa nin qaali ah, qiimo badan, taariikh muuqata oo muuqan doontana ku lahaa waxqabadkii Somaliland. waxaan jeclahay inaan si kooban uga hadlo oo aan ku xasuustaa annagu 79kii intii ka dambeysay ilaa maanta xiriir baanu lahayn, gaar ahaan weliba markii uu ka yimid magaalada Muqdisho. waa ninka keliya ee aqoon-yahan ahaa ee uu dadkii ugu noqdo markii Baki laga dhigay degmo maayir ku-xigeen noqday 1984 ilaa 89kii, oo dadkii uu ka yimiday si uu wax ula qaybsado. markaan taa ka soo tago, waxa aan ogahay oo aan xoogaal u ahay in wax badan iyo goobo badan oo aanu ka soo wada qayb qaadanay. waxaanu ku tirsan yahay oo taariikhdu ay mataqaanaa markhaati uga tahay inuu ka mid yahay allaha u naxariistay qaasim akhshaasta ama dadka farakutiriska ah ee dhidibada u taagay qarannimada maanta Somaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal. allaha naxariistii janno ka waraabiye. hadalkaasi wuxuu ahaa hadalka marxuun maxamed xasan mataan. haddaba dad badan oo iyagu goobjoog ahaa ayaa tacsiyada u gudbinaya eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuunku. bismillaahi raxmaani raxiim, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ehladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday marxuun maxamed xasan mataan. waxaan leeyahay sabir iyo iimaan dhammaantiin, intii ehladiisa, intii qaraabadiisa, intii asxaabtiisa, dhammaantood waxaan leeyahay sabir iyo iimaan. ilaahay sabir iyo iimaan hanaga wada siiyo dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullah. anigoo oo maxamuud cabdi barraa halkan waxaan uga dirayaa tacsi. waxaana leeyahay samir iyo iimaan eheliyadii uu ka baxay maxamed xasan mataan, xunkii allaha u naxariistee, dhammaan ehelkiisii iyo dhammaan dadweynaha reer Somalilandba waxaa tacsidaa u diraya. waxaana leeyahay allaha u naxariisto walaalkeen maxamed xasan mataan. assalaamu calaykum. bismillaahi raxmaani raxiim. aniga magacayga ibraahim daahir bilaal, injineer bilaal. waxaan tacsi maanta u dirayaa walaalkeen maxamed xasan mataan oo ku geeriyooday London. hortina wuxuu ahaa nin qiimo lahoo dadku aad u jecel yihiin. waxaad ka garan kartaa sida janaasadiisa looga qayb galay. ilaahay isaga naxariista janno ha siiyo, eheladii iyo qaraabadii uu ka tegayna sabir iyo iimaan ka siiyo, iyo dhammaan dadweynaha Somalilandba. waxaan u baryaynaa ilaahay inuu jannadiisa ku marnaysto, ehelkiisiina iyo carruurtiisiina mar labaad uu sabir iyo iimaan ka siiyo. wassalaamu calaykum.